waa tuugo madow ah oo alaab ka soo dhacay mid ka mid a goobaha ay ku ganacsadaan dadka Afrikaanka ah oo isugu jira Soomaali, Zimbabwean, Congolese iyo South Afrikaanka qaarkood. Haddaba tuugada waxaa ku dhegan rag arkay xilligii ay falka xaditaanka ku jireen. Raggan ku dhegani waxaa weeye iyaga laftirkooda ajaanib. waa uu inkirsan yahay. waxaa soo baxaya maamo Soomaaliyeed oo ul gacanta ku wadata, taasoo laga horgo doonaysa inay ninka ku qaraacdo tuuga ah. bal daawo oo indhahaada ku arag siday maamadaasi usha ula baxsanayso. waa tan way la baxda usheedii, way la baxday. waa meelay uga dhifatay ayay raadinaysaa fursaddii. iyada laftirkooda waa isku dhex yaaban tahay. tuugii iyo raggii tuugi la dagaalaya ayaa isaga dhex darsan. mid ka mida ninkii tuuga la dagaalaya ayay maamada ku dhigtay. waa la isku dhegan yahay. arrimaha noocan oo kale maalin kasta ayay dhacaan. wiil Soomaali oo maamadii la hadli maayo xataa ula baxda ushi. waa geesiyad. daawo ninkii waa lala baxsaday. si faro jala ayuuna meesha uga baxsanayaa. qabasho wacan.